السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو وناكسن داوديال meel kasto aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo xiliyadan oo kale aynu idin soo gudbino qodobada saaxiibayaal maanta aynu idin hayno waxa ugu waaweyn xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo guddoonka baarlamaanka u gudbiyay mooshin ka dhanay heshiisyo madaxweyne farmaajo la galay dawladaha Itoobiya iyo Eritrea haddaba maxaa ku soo beegay xilligan barnaamijka ayaynu kugu soo gudbi doonaa villa Soomaaliya oo doonaysa inay kala dirto ciidamada ilaaliya musharaxiinta koonfur galbeed waxay tahay sababtu suurtagal samatahay in xilligan ciidamo baydhabo ku ilaaliya musharaxiin dawladdu kala dirto dawladaha Soomaaliya iyo Qatar oo qarka u saaran inay ku kala tagaan musharaxnimada Muqtaar Roobo telefishinka Dooxa Al Jazeera ayaa shaaciyay sida Qatar uga go'an tahay inay taageerto wadaadka ka soo goostay shabaab ee hadda u sharaxan madaxweynaha koonfur galbeed safiirka cusub ee Qatar oo ku dhawaaqay ballanqaad ka farxiyay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo diyaar garooba daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad aynu idinku soo gudbino ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo locationka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store markale kulanti wanaagsan daawadayaal waa 5 bisha 12aad sanada 2018 haddii aynu ku bilaawno barnaamijka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saxiixay mooshin ku saabsan in baarlamaanka la hor keeno heshiisyo dalal shisheeye oo la galay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya intii uu xilkan hayay 10 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa saxiixay soo jeedinta mooshinkan waxaana ay dalbanayaan in xildhibaanada la hor keeno si looga doodo qoraalka mooshinka ah ee guddoonka baarlamaanka xildhibaanadan u gudbiyeen waxa ay ku sheegeen inay muhiim tahay in la faahfaahiyo heshiisyada madaxweyne Farmaajo la galay dalal shisheeye gaar ahaan Itoobiya iyo Eritrea waxaana ay ku doodeen xildhibaanadani in madaxweynuhu heshiisyo iskiisa oo aysan la ogeyn xubno ka tirsan xukuumadda iyo baarlamaanku dalalkan uu la galay xildhibaan Cabdifataax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee diyaariyay mooshinka ayaa si faahfaahsan uga hadlay sababta xilligan mooshinka ay u keeneen waxaana uu tilmaamay in lagu go'doominayo dalka Djibouti oo saaxiib dhow la ah Soomaaliya xilligan aysan suurtagal ahayn waxa sidoo kale uu ka digayaa in ciidamo Eritrean la keeno dalka Soomaaliya maadaama kuwa Etoobiyaan ay joogaan sidoo kalena shirku uu yahay saddex geesood oo Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia heshiis ay ku galeen waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno mooshinkaasi inuu jiro sabtidana aan idin xaqiijino in sabtidana la raaci doono la marin doono habraaci rasmiga ahaa ee goluhu uu mooshinada ku qaban jiray marka mooshinkaasi wuu jiray laakiin wali lama aqbalin oo wali guddoonku la yaala waxaanay ahayd in sabtida habraaci rasmiga ahayd la mariyo laakiin si aanan garanaynin buu u baxay oo uu galay saxaafadda waxaa jira waa ogtihiina waxaa jira warar sheegaya oo ila wareedyo muhiim ah ka yimi oo sheegaya in Soomaaliya soo gashay heshiis saddex geesooda oo ay qayb ka yihiin dawladda Itoobiya iyo Eritrea heshiiskaasi walaacu ummadda Soomaaliyeed ku abuuray walaacyada ummadda Soomaaliyeed uu ku abuuray waxaa ka mid ah in dawladda gobolka ay nagula taalee walaalaheena Djibouti heshiiskaas aanu aaminsanahay in lagu go'doomiyay oo aanay qayb ka ahayn arrinta waxaan rabnaa inaan dareenkayaga cabirno oo aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno oo aan u sheegnay inaan ummadda Soomaaliyeed raali ka noqon doonin heshiis gobol oo walaalaheena Djibouti ay ka maqan yihiin waxa kale aynu garawsanay oo hadda warar ilad wareedyo muhiim aanu ka helay in mooshinkaasi uu baritaarayo dawlad walaalaheena Djibouti ka haysata dhul iyo dadba marka waxaan u aragnaa inay qalad tahay ummadda reer Djibouti oo ay ogeydeen halgankii ay u soo mareen in dawladnimada Soomaaliyeed dib loo soo celiyo oo ay dawladeenu noqoto dawlad mar labaad cagaheeda isku taagtay in loogu abaalgudo inaynu ka hadli kari weyna ama aynu qayb ka noqono heshiisyo looga gol leeyahay in lagu go'doomiyo oo looga hiiliyo dalalkii ay geeska isku hayeen ama dalkii ay geeska isku hayeen ee muranku ka dhaxeeyay
waxa kaloo aanu rabnaa in aanu muujinno walaaca aanu ka qabno heshiiska waxaa qayb ka ahoo naloo sheegay in la keenayo ciidamada Eritrea in ay ku soo biirayaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM taa waxaanu ka rabnaa inaanu halkan ka muujinno walaaca aanu ka qabno keliya ma aha Eritrea haddii heshiiskaasi jiro Ethiopia oo ciidamadeedii inala joogaan iyo Eritrea oo ciidamadeedii ay imanayaan umaleyn maayo inaynu midnimo la geli karno sababtoo ah dalkaba markaa waa la qabsanaya haddii dalkii aad kala hadlaysayba midnimada ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto si kasta oo loo dhigaba dalkii ay wuxuun ku midoobayseen haddii ciidamadiisi kula joogaan oo ay qaybba ka yihiin nabad ilaalintaadii way adagtay midnimada noocaasa in qayb laga noqdo marka taana waxaanu ka digaynaa waxaanu ku baaqaynaa in ciidamada Ethiopia ay haddii heshiiskaasi jiro in ay ka baxaan AMISOM oo ay dalka nooga baxaan waxa kale oo uga digaynaa ciidamada Eritrea inaanay dalka iyaga iman maadaama heshiis noocaasi laga wada hadlayo hataa hadduu yahay mid dhaqaale keliya ku saabsan heshiisyada annagu ma garanayno waxa ku qoran xukuumadda waxaanu ka dalbanaynaa heshiisyada noocana in la hor keeno golaha si ay ummadda Soomaaliyeedna noola ogaato waxa heshiisyadu yihiin annaguna aanu uga doodno haddii danta qaranku ay ku jirto aanu uga doodno aanu isla aragno haddii aanay danta qaranku ku jirinna aanu diidno oo aanu ummadda Soomaaliyeedna ay ogaato halkaanu ku diidayno waxa uu ahaa xildhibaan Cabdifataax oo ka tirsan golaha shacabka kana hadlayay sababta mooshinka ay u keeneen Villa Soomaaliya ayaa doonaysa inay kala dirto ciidamada ilaaliya musharaxiinta Koonfur Galbeed haddaba suurtagal ma tahay in ciidamo musharaxiin ku ilaaliya magaalada Baydhabo xilligan ay kala dirto dawladda Soomaaliya xog gaar ah oo ay heshay warqad waxa ay tilmaamaysaa in kulan ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya si weyn looga hadlay sida ay macquul ku tahay in amniga Baydhabo ay la wareegto dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ciidamada ilaaliya musharaxiinta laga dhigo hubka kulanka ka dhacay Villa Soomaaliya waxa goobjoog ka ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo saraakiil sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaana la isku soo hadal qaaday sida ay ku suurtagelayso dawladdu inay si dhab ah ula wareegto amniga magaalada Baydhabo oo dhawaanay ka dhacayso doorashada madaxweynaha maamulkaas dawladda dhexe ayaa toddobaadkii hore ciidamo badan waxay geysay magaalada Baydhabo iyadoo la dejiyay meel u dhow agagaarka madaxtooyada maamulkaas xildhibaano ka tirsan Koonfur Galbeedna waxa ay soo jeediyeen in ciidamadan dib loogu celiyo magaalada Muqdisho waxaana ay ku eedeeyeen dawladda dhexe faragelin qaawan inay ku hayso arrimaha doorashada ciidamadan ay doonayso inay ku afduubto ciidamada la geeyay Baydhabo ayaa la sheegayaa inaysan xilligan ku filnayn guud ahaan amniga Baydhabo maadaama dawladdu ay qorsheynayso inay la wareegto amniga magaaladan muhiimna ay tahay in ciidamo dheeraad la geeyo sida kulankan la isku soo hadal qaaday siday noo sheegeen ila wareedyo muhiim waxa la isku soo qaaday kulankan in magaalada Baydhabo gaar ahaan goobta ay ka dhacayso doorashadu la geeyo ciidamo ka tirsan kuwa Arf Group ee sida gaarka u tababaran si amniga u xaqiijiyaan magaalada Baydhabo saacadihii la soo dhaafay waxa ka dhacay israsaasayn dhaxmaray ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwii dhawaan la geeyay magaalada iyo qaar ka mid ah ilaalada musharaxiinta waana sababta keenaysa in dawladda Soomaaliya ay wax qaltaagto inay la wareegto amniga magaalada Baydhabo weli warqad ayaa nagala socotaan qaybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa dawladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa qarka u saaran inay ku kala tagaan musharaxnimada Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur waxaana telefishinka Dooxa ee Al Jazeera shaaciyay sida ay Qatar uga go'an tahay inay taageerto wadaadka ka soo goostay shabaab ee hadda u sharaxan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed sargaal ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa u sheegay warqad in madaxtooyada Soomaaliya fariin ay u dirtay dawladda Qatar taas oo la xiriirta inay joojiso taageerada ay siinayso Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo hadda taageero badan ku leh deegaanada Koonfur Galbeed dawladda Qatar ayaa lagu wargeliyay haddii ay faraha kala bixi wayso arrimaha ay ku guda jirtay ku aadan taageerada Mukhtaar Roobo in dawladda Soomaaliya dacwad ay ka gudbi doonto sidaas inay suurtagal ku tahay in xiriirka labada dawladood oo hadda wanaagsan uu xumaado telefishinka caalamiga Al Jazeera ayaa cadeeyay sida xukuumadda Dooxa ay kaga go'an tahay inay taageerto Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo u sharaxan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed waana sababta dawladda Soomaaliya uga walaacsan tahay in Roobo xilkan uu ku guuleysan doono hadii uu tartamo Qatar ayaa la sheegayaa markii horeba inay qayb ka ahayd talaabadii Roobo shabaab uga soo baxay isla markaana ay ku dhiirigelisay inuu noqdo siyaasi caadi ah maadaama ay taageerayso
dowladda dhexe Soomaaliya dadaal xooggan ay ku bixinaysaa in Mukhtaar Roobow xilkan uusan u tartamin waxaana Roobow laftigiisu baydhabo ka wada aruursiga xildhibaanada maamulkaasi oo dooranaya madaxweynaha Mukhtaar Roobow ayaa ah musharaxa kaliya ee dowladda Soomaaliya hadda ka walaacsan tahay in tartan adag uu la geli doono maadaama ay wadato musharax lafta garan oo ay doonayso inuu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed weli daawadayaal warqad ayaad nagala socotaan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay safiirka cusub ee dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqay ballanqaad ka farxiyay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed danjiraha cusub ee dowladda Turkiga dhawaan u soo magacowday Soomaaliya ayaa ballan qaaday inuu sii adkay doono xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya waxa uu sheegay in dalalka Soomaaliya iyo Turkiga yihiin walaalo isla markaana uu xoojin doono sidii markaasi loo sii ambaqaadi lahaa xiriirka hadda ka dhaxeeya loona sii adkay lahaa danjirahan cusub oo warqadaha aqoonsiga uu ka gudoomay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuu laba jibaari doono xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga Organ Bagar oo ahaa safiirkii hore ee dowladda Turkiga u fadhiyay Soomaaliya ayaa 4 sano joogay waxa uu ka shaqeeyay wanaajinta xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waxaana safiirkan cusub uu sheegayaa inuu halkaas ka sii ambaqaadi doono wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa u mahad celiyay dowladda Turkiga marka warqadaha aqoonsiga uu ka gudoomay safiirka cusub ee Turkiga u soo magacaabay Soomaaliya guud ahaan daawadayaal waa naga intaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqad berito intaaynu mid lamid ku kulmayno nabadgelyo ku soo dhawow warqad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like siina share garee haddii aad nagu cusub tahayna subscribe si aad u hesho muuqaalo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay